kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka qubanaha maanta oo idinka imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah Mareykanka oo ciidamadiisa kala baxaya Soomaaliya. ciidamadan ayaa door weyn ka qaata ololaha la dagaalanka al-shabaab. haddaba bixitaanka ciidamadan saameyn intee leeg ayay yeelan karaan? falanqayn ayaynu idinka haynaa. horumar laga sameeyay xal u helidda khilaafka dalalka khaliijka ka taagan. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena qubanaha maanta. aan ku bilownay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in inta badan ciidamada Mareykanka ee jooga Soomaaliya la saarayo ka hor inta aanu xilka wareejinin madaxweynaha talada haya ee Donald Trump bisha dambe ee sanadka soo socda. talabadan ayaa qayb ka ah go'aan uu madaxweyne Donald Trump soo saaray uu ku dhimayo ciidamada Mareykanka ee jooga dalalka Afghanistan, Soomaaliya iyo Ciraaq. Mareykanka waxaa Soomaaliya ka jooga ciidan tiradooda lagu sheegay 700 oo askari, kuwaasi oo tababar iyo taageeraba siiya ciidamada Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika. ciidankan Mareykanka ayaa door weyn ka ciyaara dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab ee ku xiran ururka al-Qaacida. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bishii Oktoobar sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay taageerada militari ee ciidanka Mareykanku siiyo. haddaba go'aanka lagu saarayo ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab? arrimahan ayaa waxaan ka wareysanayaa Cabdisalaan Yuusuf Guleed oo hore u soo ahaa agaasima ku-xigeenka hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA, haatan ku sugan magaalada Muqdisho. Cabdisalaan, soo dhawow. marka hore maxay Soomaaliya ku waayeysaa in ciidamada Mareykanku ay Soomaaliya ka baxaan? aad baan ku salaamayaa. Mareykanka Soomaaliya ciidan kaliya kuma joogin, waxay gacanta ku hayeen wax badan oo la dagaalanka al-shabaab iyo awood siinta ciidamada Soomaaliya. waxay gacanta ku hayeen 1 battalion ciidan ah oo danab loo inta badan amaleen inay ka yihiin goobaha dagaalka. waxay gacanta ku hayeen ciidanka gaashaan la yiraahdo oo ayagana nabad sugidda ka ah, laakiin qaybta security-ga Mareykanku ee sirdoonku ay gacanta ku hayeen. waxay gacanta ku hayeen drone iyo la dagaalanka al-shabaab oo runtii saameysay inaan al-shabaab aysan sanadii u dambeeyay ku dagaalamin gaadiidka dagaalka oo ay ku dagaalamayeen oo kaliya ciidan infantry. taasna meesha way ka bixi doontaa. waxay kala gacanta ku hayaan baysas badan. Mareykanka waxa bays waa intaan ognahay Soomaaliya Balidoogle, laakiin waxay joogaan meesha la yiraahdo Galgala, waxay joogaan meesha la yiraahdo Gaalkacyo, waxay joogaan magaalada Muqdisho, waxa Kismaayo qayb yar ay ka joogaan. waxaasoo dhammaan waxay noqonayaan inay meesha ka baxaan. waxyaabaha kale oo ayadana runtii u baahan in la sheego waxaa ka mid ah Mareykanku Afghanistan iyo Iraq oo joogo wuxuu sheegay inuu ciidamada qayb ka qaadan doono, laakiin kuwan Soomaaliya waxa muuqata inay dhahan dhamaantood waan ka qaadi doonaa. taasuna waxaan is leeyahay waa caqabad weyn oo Soomaaliya security-ga soo foorsa. dabcan waxyaabo fara badan oo Mareykanku ay lug ku leeyihiin baad sheegtay oo Soomaaliya haddii ay ka waayaan ka tagaan ay caqabad ka imaanayso. laakiin Mareykanku Soomaaliya waxay ka abuureen ciidanka commandos ee loo yaqaano danab. ciidankaasi marka haddii Mareykanku ay meesha ka baxaan xaalkoodu siduu noqonaya? waxaan ciidanku mushaarkay dhiibaan oo weerarka iyo commandmentiga iyo equipmentiga iyo wax kasta ay gacanta ku hayaan. ciidankan adiga 1000 iyo xoogaa weeyaan. hay'ada ciidanka Soomaalida waxaa ka jira only 3 ciidan haddaan iraadaba ayaa tayo leh. waa ciidanka la yiraahdo Gorgor oo gacanta ay ku hayaan Turkidu, ayaga tababareen, ayaga qalabka siiyeen, mushaarka ugu badan ayaga siiyaan. iyo ciidankan danab waa ciidanka ugu macnaha badan Soomaaliya. ciidanka marka tababarada ku soo qaatay meelaha kala duwan ee gacanta Soomaalida ku wareega ka soo qaba kuwa Imaaraadka oo kale ay hore u hayeen, waxay ku dambeeyeen baylax way kala tageen. way maanta meel lagu ma sheego. haddii marka ciidanka sidaan u qalabaysan ee Soomaaliya ugu rajo weyn tahay role model kuwa la dagaalanka al-shabaab iyo security-ga Soomaaliya, haddii Mareykanku meesha ka baxo rajadan ka qabaa waxay tahay inay ku beedar doonaan ciidamada kale ee NSA-da ee aan maanta tayo badan lahayn. waxaa jirta sidaad adiguna carabka ku dhufatay in Mareykanku drone iyo waxyaabo kale ay ku weerari jireen xarumaha ama saldhigyada kooxda al-shabaab. marka dhankooda haddii culayskii Mareykanka kaga imaanayay iyo weeraradii ka imaanayay ciidamadii dalka ka joogay ay la baxaan, iyaga maxaa saameynaya sabab ku yeelanaysa arrintan? al-shabaab guulay u tahay in Mareykanku uu ka baxo Soomaaliya. guushay u tahay waxay tahay gaadiidka al-shabaab ay haystaan kama yara gaadiidka ciidamada dawladda Soomaaliya ay haysato. wax kasta oo hubaho dawladda Soomaaliya haysa shabaab way haystaan. shabaab kuma dagaalamaan gaadiidkoodii, ciidan infantry ku dagaalamaan gaadiidkoodii geedo ugu hoos jira. haddii marka daroontii meesha ka baxdo
inkastoo kasoo duuli karto meeshii la Djibouti oo maleynaa inay base noqon doonto weli cabsi ah jirta laakiin sida hadda ay ciidamadan danab ay maalin kasta ugu baacsanayeen helikabtarada uga degayeen maaragtay barashuudka uga degayeen baysaskooda oo madaxdooda u soo qabanayeen waxaa suurtageli doonta inaad aragto asbuucyada soo socda shabaab oo gaadiidkooda tiknikada la soo baxay ku weeraraya xariyaha ciidamada taasna waxay khatar geli doontaa meelo badan oo maanta ay furimo oo ciidankii Soomaaliya iyo ciidanka AMISOM wasna casualty-ga iyo maaragtay iyo dhibaatada way badan doontaa waagarta waxaa jirta in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo bishii Oktoobar codsaday in aan ciidamada Mareykanka Soomaaliya laga saarin dabcanna waxaa muuqanaysa in baahi ay u qabaan in Mareykanku ay dalka joogaan Mareykanka waxaa xilka la wareegaya dhamaadka bisha dambe madaxweynaha la doortay Joe Biden ma isleedahay marka madaxweynahaasi cusub waa suuragal inuu ciidamadii Mareykanka dib ugu soo celiyo Soomaaliya amaba sida aad sheegtaba haddii aanay dalka ka bixin ay suuragali weyso inay wax uga haraan uu arrinta sii dheeray in Soomaaliya ciidanka Mareykanku sii joogo sida muuqata madaxweyne Farmaajo codsigiisa lama aqbalin waxaad kaloo ogtahay in wasiirka gaashaandhigga Mareykanka Mark Esper asaga laftiisa oo fayfreed u ahaa ama uu aad u daneynayay Soomaaliya in ciidamadu ay joogaan oo aad u daneynayay dagaalka shabaab lagula jiro laakiin aad u maleysay inuu sababsado oo sidaas looga qaaday xilka meelaha qaarkood lagu sheegay Mareykanku waxay ku statementigooda ku sheegeen inaysan baysaskooda iyo istaraatiijiyada Soomaaliya ay kaleeyihiin iyo loolanka baysaska Soomaaliya lagu yeelanayo loo gacanka lafteed inay daneynayaan oo doonayaan ka majaxaabsadaan Soomaaliya laakiin waxa ay muuqata in waqtiga isku soo aaday Donald Trump markuu doorashada galay wuxuu yiri ciidamadayda banaanka ka jooga Mareykanka ee dagaalkan Soomaaliya ku jira waan soo ururi doonaa maadaama hadda doorashadii looga adkaaday aanan u maleynayo inuu doonayo markaa doorasho ku soo laabto inuu suurto geliyo ballanqaadyadii uu doonayaa taasna waa mid oo isleeyahay oo leeyahay ciidamadii waan soo qaatay Soomaaliya 700 ay sheegteen Mareykanku inay ka joogaan haday wada qaataan 700 waxa ku maharayaan Soomaaliya base intii loo abaabuleyn doonta Joe Biden ma ka soo gaari doona waa su'aal meesha taala waana ku rajo weynahay Soomaaliya in Mareykanku joogaan la dagaalanka al-shabaab aad idan ugu jirta tayeenta ciidamada Soomaaliya iyo isku xirka labada wadan waxaan isleeyahay qayb weyn ka tahay taas waa tahay aad baad mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa Cabdisalaan Yuusuf Guleed oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho qadka Skype-ka igu waramayay dalalka Kuwait iyo Mareykanka ayaa sheegaya in horumar laga sameeyay khilaafka u dhaxeeya wadamada Saudi Arabia iyo Qatar khilaafkaasi ayaa waxa uu sababay in wadamada Khaliijku ay xariga u jaraan wadanka Qatar wariyaha VOA magaalada Qaahira Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan inoo soo diray wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Kuwait Ahmed Nasir Sabax ayaa xaqiijiyay in wadahadallada ay soo gaareen meel fiican suuragalna ay tahay in la gaaro heshiiska madambaysa dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Saudi Arabia ayaa soo dhaweeyay dadaalada ay wadaan dowladaha Mareykanka iyo Kuwait isaga oo muujiyay boqortooyada Saudi Arabia in ay diyaar u tahay xal nabadeed in lagu dhameeyo xiisada dowladaha Khaliijka sidaasi si la mid ah wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Qatar ayaa si taxaddar leh u soo dhaweysay bayaanka dowladda Kuwait iyadoo si weyn ay u amaantay kaalinta ay qaadanayaan dowladaha dhexdhexaadinta wada sidoo kale xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay maalintii shalay in uu rajaynayo soo afjaridda xiisada dowladaha Khaliijka arrimahan ayaa imaanaya xili maalmihii ugu dambeeyay dalalka Qatar iyo Saudi Arabia uu booqasho ku joogay la taliyaha madaxweyne Donald Trump Jared Kushner kaasoo kulamo la qaatay madaxda sare ee dalalkaasi dowladaha Mareykanka iyo Kuwait oo ah labada dowladood ee dhexda u xirtay sidii loo dhameyn lahaa xiisada dalalka Khaliijka ayaa dadaaladooda dhinaca diblomaasiyadda soo martay heerar kala duwan tan iyo markii ay bilaabatay khilaafka u dhaxeeya dalalka Khaliijka Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira ruushka ayaa 70 shaybaaro ku yaala magaalada Moscow waxa uu ka bilaabay tallaalka lagu magac daray Sputnik kaasi oo loogu talagalay in lagu daweeyo xanuunka COVID-19 talaalkan ayaa loo diyaariyay howlwadeennada caafimaadka kuwa arrimaha bulshada iyo dadka ka shaqeeya dugsiyada maadaama ay ku howlgalaan xaalad halisteedu ay sarreyso oo ay suurtagal tahay inay qaadaan coronavirus dadka daadoodu ay ka weyn tahay 60 sano ayaa laga reebay dadka helaya talaalka ruushka ayaa qofka lagu mudayaa 2 jeer
iyadoo marka labaad qofka la siinayo 3 toddobaad kadib marka uu qaato ka koowaad. kumanaan qof ayaa isu diiwaan geliyey inay qaataan talaalka, hase yeeshee ma cadda muddada lagu farsameeyey in lagu soo saaro talaalka. qaar ka mid a saynisyahanada ayaa su'aal geliyey waxtarka talaalka ruushku uu soo saaray iyaga oo ku sababeynaya degdegta uu suuqa ku soo galay. ugu dambeyntiina idaacadda VOA ayaa magaalada Garowe waxay dhawaana ku qabatay kulan dadweyne oo looga dooday sida ugu habboon ee lagu horumarin karo nolosha dadka ku barakacay gudaha Soomaaliya. wariyaha VOA Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garowe. codkaasi Fawziya waxa uu qayb ka ahaa kulan dadweyne oo VOA ay ku qabatay magaalada Garowe kaasoo lagu falanqeynayay wadiiqooyinka lagu horumarin karo nolosha barakacayaasha. kulanka waxaa ka qayb galaya madaxda bulshada rayidka, xafiiska barakacayaasha, wasaaradda arrimaha gudaha, dadka u dooda xuquuqda bini'aadamka, ardayda jaamacadaha iyo barakacayaasha laftigooda. barnaamijkan lagu qabtay Garowe kulan dadweyne oo lagu gorfeynayay wadiiqooyinka loo horumarin lahaa nolosha barakacayaasha wuxuu ka mid ahaa barnaamijyo taxane ah oo lagu soo qabtay Baydhabo, mid kalena xamar lagu qaban doono. waxaa lagu hadlayay asaasiyan sida loo horumarin lahaa nolosha barakacayaasha dhibaatooyinka haysta. Puntland waxay ka mid tahay meelaha ugu badan ay u soo qaxeen dadka qaxootiyaasha ilaa 20 sano jooga. marka si loo helo xal waara maxaa nolosha laga bedeli karaa dadkii joogay 20 sano. marka muhiimadda ugu weyn waxay ahayd in talo bixin dadka ay ka geystaan. kulan dadweyne ahaa yani si fiican uga soo qaybgaleen. waxaa nagala soo qaybgalay maamulka Puntland, wasaaradda arrimaha gudaha, si fiican loo gorfeeyey sidii loo horumarin lahaa nolosha barakacayaasha. Fawziya Nuur Badal waa hormuudka mid ka mid ah xarumaha barakacayaasha magaalada Garowe, waxayna ku sugnayd iyada iyo caruurteeda muddo 10 sano ah. waxa ay kulanka ka sheegtay sababaha ay ku doorteen Puntland. aniga markii aan fiicnaan aan helo oo la wanaajiyo la soo dhaweeyo oo meel la idajiyo kii kale xaq ku dhibna waa u soo sheegaya oo dhiban uu soo wacaya wuxuu ku leeyahay walaal waa dhibanaan maanta meel hebel aan u barakacna maanta saas waa adigana waa waxay sameeyeen Puntland meel fiican dadku marka sidaas ku yimid. kulankan waxaa xoogga lagu saarayay sida loo horumarin karo nolosha barakacayaasha. waxaa martidii goobta fadhiday ka mid ahaa Beexaani Axmed Barre oo ah agaasinka barakacayaasha Puntland. waxyaabaha ugu muhiimsan oo lagu horumarin karo horta xagga nolosha qofkii markuu uu soo guuro oo anaga dhul aan siino oo dhulka la dejiyo nolol bay u baahan yihiin. waxyaabaha ugu muhiimsan waxa waa in dadka loo sameeyo maalgelin. gudoomiyaha bulshada rayidka Faysal Axmed Warsame iyo Nimco Muuse Dalaf oo ka mid ah u dhaqdhaqaaqayaasha dhinacyada bini'aadanimada iyo horumarinta qoyska, sidoo kalena ka mid ah madaxda ururka saxaafadda MAB ee Puntland, ayaa labaduba ku dheeraaday nidaamka lagu horumarin karo nolosha barakacayaasha. horta dadka barakacayaasha ah waa loo dadaalaa oo taakula waa jirta haddii aan la dawladda iyo bahwadaagteeda ku mashquulsan barakacayaasha. laakiin waxaan aaminsanahay intaa ka gadaale inay jihadu dhankooda jirto oo iyaga hadduusan horumarkii ka imaan waxa la tarayaa aysan wax badan qaban karin. waxaan mar walba annaga bulshada reer ahaan aan aaminsanahay oo aragtidanu tahay mushkiladda dadka Soomaaliyeed oo maanta gudaha ku barakacsan oo guryahooda aan joogin oo qaxootiga oo dayacan oo dhibaatooyinka badan haystaan iyo kuwa banaanka ku dhibaataysan ayagana sidoo kale wadamada jaarka ay meel fogfog u qaxay oo caruurtoodii iyo dadka kala dhumeen. waxa sabab u ah siyaasiyiinta Soomaalida. waxaan anagu aaminsanahay inay tahay siyaasiyiinta Soomaalida inay iyagu heshiiyaan in dalka waddo u furaan, in siyaasadda deganaansho ah oo isqa qabsi lahayn iyo dawladnimo hore loo wado. barakacayaasha ayaa tilmaamay caqabado badan oo ka haysta dhanka nolosha, isla mar ahaantaana ay u baahan yihiin inay gacan helaan. arrimaha ay taabtaan waxaa ka mid ahaa dhanka waxbarashada iyo fursado shaqo abuur. Nuux Muuse Birjaab, VOA, Garowe. dhinaca ciyaarahana kooxda kubadda cagta ee Celta Vigo ayaa 2 gool iyo waxba goor dambe habeenkii xalay ahaa waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta Atletico Bilbao. kulankan oo ka dhacay guriga Atletico Bilbao ayaa kooxda kubadda cagta ee Celta Vigo waxay muujisay awood ah inay Atletico Bilbao gurigeeda 10 kubadeed oo halku dhigiisa yahay 2 gool iyo waxba ay sabuurada ugu dhigtay. wadanka Jarmalkana kooxaha ka wada dhisan magaalada Berlin ee Hertha Berlin iyo Union Berlin ayaa waxa ay ku kala tageen 3-1 oo kooxda kubadda cagta Hertha Berlin ay guusho ku raacday. wahagaag daawadayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa guud ahaan barnaamijkii qubanaha maanta. inta aynu mar kale dib u kulmi doono waa Maxamuud Mascad iyo dhammaanba bahda qubanaha oo idila sida iyo nooli kulanta.